عطامة كوشانا نقون كبشادا أقون كوشانا نقون كبشادا أقون كوداني السنين بانو كاتنا سيدار كرحامة بانكادو دينا سيدار كرحامة بانكادو دينا أريد بدن كومسي هاللاي واحد أكتر كومسي يقام واي نكا وحام ملاينا إن بدن بوتانا نكا نابضنا عبد الله يرو جدي markaan sii fasirana Abdullah Maxamed Geedi Allah aaba markaan yarowgan ku magac dheer yahay muddo badan baan soo soconay mar badan aan meelahan soo marnay marka waxaan rabnaa walaalayaal ninkaas aan wadanaa horaana arrintan maanta ugu mahareyso inta uu taagan yahay waa intan ilaa waxaan maleynaa jilaalkii maanta waad aragteen ninkan wax ka wareeg badan ma jirin rag waxa jira baarlamaan ku jira rag madaxa ayaa jira asagoo dhiisi oo koontiga oo dheer fahansan jilaalkan oo dhan wareegay waad ogtiin mar hata waa la dacweeyey gaarigu biyaha uu ku arooray alla yiraahdo siyaasadda u wata dhiisina uu ahay marka sidii jirtaa sidaas dadkana waxa la rabaa ninkii wax ku galay inuu kuraaga ku dhumo nina waxba ku galaynin kuraa wax lagu dhumiyo maaha samoodan waxa maleynaa in badan waan soo marnay dad la doorto wali aad looguma mahadin si runtii maxaa adduun gamarka anaga u horeeyna gambar la haylo samooda la horeeyay mar waxaan jirnay kan iyo caawada baan isku haasanay halkii aan taagana cuulana gambarkiisu uu bate caawada waa bate anaga halkii aan taagana halkii aan isku laaynahan egan oo nin walba leeyahay ana joogsana marka waxaas in laga aqliyo laga rabaa ninkii aad aragtay aad ka si inaad doorto ma la rabaa ninka waxa mala isoo dhiisi waad aragteen oo meelahan socdo kabtan alla waa kula intuu ka shaqeynaa handaaro soo madal masatan ilaa waxa ma ala wabi inta waa soconay hal maalin meel aan sameyn ka xirnaa waa la waayay intaas uu shaqeynay nin 10 sano shaqeynay oo samada ku dhex jiro oo sameyn laga xirin maxaa tirahay nin hasho maalin ta sameyn laga xirin rag dhaha ajiriye ninkan intaas hadii laga sheegay waaye maxaa kale oo dhex loo gelin ma la doorto markuu ambiil noqtan huwa nooga sii ficnaanay marka waxaan rabnaa walaalayaal inaan aqlino oon alla waa kuloonahay cadaaladnimo wax u dooranno ninkii wax noo qabanay kali aan meesha aan ka soo qaadano rag badan baa meesha wada socda marka waxaan rabnaa ninkaas aan wadanaa inaan ninkaas nala qaadaan oo alla waa kuloonahay la doorto oo wax galkiisa aan fiirno intii aan doonayno intaas waaye wasantiin ninkan waxaan u malaynayaa in badanna waxaad na dhahdeen ogolo turjubaanay aniga salaad ali dhaar masalaani ana Abdullahi yarow istaaniwana isla bilawne marka saan ku daba bilcad maxay dhihi jireen waa maxallahay madaxan ku wadanaa waa dabadidaynaa ninkaasaan dabadidahaynaa dhulka waxaa la dhahay laba qayb uu qaybsan yahay kookab iyo qaliisa soo lama dhihi jirin intaasaan dabadidayne idinkana waad mahadsantihiin inaa waxaa la ii sheegay ilaa 8 saacaadna sugayseen xogaa waan soo yara dhahanay dhimi jiro laakiin dalka anaga iyo dadka anaga aan u nimid sangayru maalin hore nin aan joogno wuxuu yiri samoodan aan u yeernay moogtahay wuxuu yiri Cabdullaahi yarow Xasan Cabdikariin aan qabsanay hadduu waxa leeyay 9 sano sabeen hanagu xiraana wax uu yeelay ma jira waxa leeyay ma yaydeen bes mar hadduu 9 sano wuxuu dhaw waxba uu san halaynin hadda waxaan dad kale u dhibno ma jiro ninkan hanaga ahaado Abdullaahi yarow waxaan maleynaa hadda ilmaha toon ay ugu yihiin arintu meeshan uu ka qabtay ninkan asoo dhiisay oo koontig laga maamulay quluuqa sab koonti wuxuu ka qabtay ilmaha toon ay garanayeen ani maxaan leeyahay imin gaabanaan joognaa Abdullaahi yarow samawada loo waxaan taagan ku daa Abdullaahi yarow kuraa aan siino hadal kale aan iska daayno maxaa asagoo madax banaan ahayn oo DC oo waliba national ka sii weyn oo wax weyn qabtay biro hadduu asag ahayn Allah kulli ka soo qaaday dawladda waa dhamaan lahayd meeshan oonkii noo qoto aad ogtiin 5 sano uu ku jiray ninkan si aad wax noo galay maxaa ila tahay ninkani Abdullaahi dhahay kuraasa model hala siiyo qabiil iyo wixii aan rogay ninkan hadduu noqdo MB inuu wax ka sii weyn qabanayo aan fila Abdullaahi hala siiyo kuraag wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dad fiican ku nool meeshan laakiin waxay leeyihiin dad madax ay sugaayeen madax fiican ay leeyihiin saas awgeed aan daanahay dhalinyaradii wadankan joogtay waxaan rabnaa nin horseed oo nin fiican raadinaya horseed noo noqdo amaba aan ku tiigsano ninka hadii ilaahay noo keeno Abdullaahi asagaba soo baxe
oo nin baaba raadsan lehene asaga hadduuba dhaheba anaa nii shaqayna oo baarlamaanka nii tegi waa sidaan rabnay waana sidaan sugaynay saas aawadeed handaaro haddaad ka codsato kuuraha dadka dhallinyaradii haddaan nahay waan ku siinay saas ogaanaysin midda kale inaan hadal sii badiyo ma rabi waktigana uu gaaban yahay annaga haddaan reer handaaronahay mana qabiil iyo waxyaalahaas kama sii daba shaqayno laakiin waxaan ka shaqaynaa horumarkeena magaaladeenna inay noo horumarto aan jecelnahay waayo ma aha haddii qabiil iyo heblow la dhaho gadaalan u noqonay hadda laakiin waxaan rabnaa cabdullaahi yarow wuu soo gelay insha allah markuu soo galo waxaan ka codsanaynaa waxyaaluhu noo qaban lahay handaaro ayaan rabnaa inaan sii balangareysano mooye cabdullaahi inuu soo gelaya hadda waa wax cad sidaan arkayno asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan salaamayaa martida sharafta loo kor nooga imaatay iyo reer handaaro salaam bacdigeed cabdullaahi yarow geedi waxaan malayna naguma cusbo waqti badan buu dhulkan ka soo shaqeeyey si sharaf badan buu uga soo shaqeeyey barbaxay ada aragta oo maanta oo meeshan la soo mare oo dad iyo dunyaba aad loo liite oo dhulkan cabsi taalle oo mashquul fara badan yaalle culaysku buu nagala qayb qaatay si aad iyo aad weliba waxaa kaloo ii daba yaallaa weligeed nin dawladda u shaqeeyo oo madaxe oo meeshan intuu soo mare geedkaa hoostiisa intuu istaagay dadkan intuu salaame baahidiisa weydiiye oon asaga kaen maana arkin markaa sidaa darteed waxay ila tan ninkaas isagee inaan dooranno oon kurahayna aan siino haddii jago sare uu helo sidaa iyo si ka sharaf badan buu macnaha uu samayni assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu martida sharafta leh culimaadudiinka odayaasha waa inii salaame ilaa maamooyinka waa inii salaame cabdullaahi yarow markaa mala dooran iyo mala doorana in la dhahay mamudeyniba cabdullaahi yarow 2013 uu kaamtig noo jooge ma aragtahay suunna yeele kolleyto ninkii garanay uu garana biyaha markaan wacno hadda uu imaqlihaa isag aniga macallin caamir aad u wici jirnay haddaba teleefonkiisa waani saaxiibaan ahayn waan wici jirnay barkadanu biyo noo buuxin jiray aad buu noo hagaajin jiray markii dhib la qabe cabdullaahi war noo waca oo ariga oo naay maamooyin oo naay wax kasta oo naay war cabdullaahi noo waca kala orda oo waa la qaylin jiray aad markii kaabiin imaade qabiil ala gale wax baa la kala wad wax baa kane ana cabdullaahi ma mudaynin ba in la ahay mala dooran mise mala dooranay cabdullaahi ani aad u yaqaan oo garani maxaa malay inta odayaashana waa i garani qoyskii ahayna waa la garanay amalaya odayaashu waa garanay laakiin cabdullaahi si isku nahno iyo si waxyo asagu garanay egila oonay cabdullaahi waan wacayne alxamdulillah biyahan uu nasiinay teleefankan uu naga qabanay cabdullaahi yow adi maxaan ku leeyahay haddii hesho jagadan iyo haddii helinba doorashadan hadda 6 qof miya wixii taagan imbi sidaadii hore aan ku soco nin islaam tahay marka sidii teleefanku u qabanaysay iyo sidii ahayd wanaagi un ku soco haddii hesho kolleyto iyo haddii helinba aad baa u mahadsanta waqti gaaban oo argiis gaaban waa lehe ma sii dheeraynay السلام عليكم واني سلام مسؤول شرفت له يا ريحان دارو محاني شيء عبد الله يرو هاد نوغو ما هريسو جيد كان maxaa u malayn waqti badan uu noogu imaaday December ma ahayd meeshan maalin loo fadhiisanay uu na weydiistay kura mana dhaweey waqtigaas waqti dheer ahayd ballana u qaadnay marka dadkan islaamana haduu ilaahay islaam naga dhigay ma fiicno up and down in loo socdo waayo haddii maan nin ballan ka qaado berrina nin kale ku orodo dhibkeeda leedahay ilaahay uu ku weydiin kula xisaabtama markaan ma hore handaaro maxaan ii sheega maadaama ninkan ballan u qaadne oo waqtigaas aan kuura aan ku siinayn ina dooranno oo sidii u qaadne u wadno oo meel kale ka marin la leexadka iska daayno aan iga codsan horta handaaro marka insha Allah Abdullah yaro uu soo gala aan dooranno war Abdullah yaro maqaan Abdullah yaro marka Abdullah yaro maxaa ku sheegay nafta hadii soo gasho insha Allah waaba soo galiye niyo wada sidii horaan ba ahayd in ku socoto wax qabadkaada nin adii wax loo sheegay mal anagu buu noo cadiya marka inay wax qabani wax zaid noo qabato aad u jecelna way salaamayeen maamooyin odayaash iyo martida noo imaato sharafta badan waad mahadsantihiin waana salaamantihiin inta kadib odayaasha kor arrintan nooga keeneen ama dadka walaalahanaga oo socdo ninkaas Cabdullaahi yarow ala wata waxaan rabnaa ninka Cabdullaahi yarow sidii lagu soo dhaweyn lahaa ama kaabeen oo kura ugu rileedeen horta inay lagu dadaalo waa nin walaal ah
waa nin niila dhashe waa nin wiilkiini wuxuu soo gale waa laga warbixiyey kutoka huluuqda meeshan intaas baa laga warbixinay ninkana wuxuu soo galay in la qariyo in la sheego waajibe hadduu soo galona sidaas iyo kasii fiican unba wax u sii qabani egan waxay nala tahay Cabdulla yarow in la qaado oo kuro la siiyo muddo yara ka hartay muddo 50 beri ama wax ka yara ka hare wuxuu u baahan yahay shalay haddii anagu u baahneen maanta asan noo baahan kuriga asaga inaan ku caawino Cabdulla yarow inaan qaadno waan qaadnay ma ku baalin nalagu baali Cabdulla Ju السلام عليكم ريحان دارو السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله ود ما سنتين سيد نو سو دويسين wixii raali gelin ama cudur daare duqeyda shaygan kuma sii noqonay waa waqti gaaban meeshan madaqo ku mihi garaskana madaqo ku mihi aad iyo aad baad mahadsantihiin markii hore waxaa idinka raali gelini waa idiin soo mare waa idinka tag waaye 6 bilood ka horna geedkan waan soo mare waxaan u malaynayaa qofka koowaad oo doorashadii weydiis waan ku jiray berigaas haddana waxaan u malayn waa idiin soo mare waad mahadsantihiin laakiin waxaan idiin xaqiijinay kaambeenka maanta kalix maaha handaaro waan ku soo laabane anoo marti ila soconno wiilkiina keligiin sidii beriga aan booyda hor socon jiray anoo keligin adii imaani markaasaan buula tuula odayaashaan rabin aan la hadlo oon baryo nin walba kuraagiisa aan weydiisto walaalayaal waad mahadsantihiin ani faahfaahin dheer iyo isbarasho badan iyo waxaan qabana waxaan sameey jiray madindhahay dadan aad isku garanayna way wax badanna geedka waan ka hoos hadlay Reexaan Daaro waxaan u malay hadaa wiil baa sangaaylo ka hadlay wuxuu dhahay barbaxi la soo dhaafay bere hore Cabdullaahi uu na garab istaagay hadda garab aan u noqono maanta ana barbaxi ku jira maanta ana garab u baahan haddaan wiilkiina ahay haddaan dhiisidiin ahay 9 sano wixii tabartay ila sinaa markaa waan qabtay waliba dawladda countiga oo waxyaalo badan laga yaabaa ka gaabisay yaan la shaqeyn jiray laakiin wixii dadaal oo markaa waajib isaarna waan gudani jiray meesha handaaro laga bilaabo ilaa iyo Sinaaynta ka shaqeyn jiray maanta waxyaalaha igu kalife rag badan baa dhanay nin wadaad baad ahayd maxaa siyaasad ku gali baashan way badan tahay waxaan dhahay aabbaha hadduu ilmihiisa ku baadaan guriga muus ka fadhiso inuu sahmiyo maaha Reexaan Daaro ilaa reer luuqo intii 9 sano ka shaqeynay waxaan ogaaday xaq badan oo gacantayda soo marin oo ay tabanayeen oon tabar u waayna u keeno insha Allah waxaa si niye oo lillaahi iga inaan wiilkiina ahay oo di garanaysiin codkiina haddaan baarlamaanka ilaahay u waafajiyo aan ku tago waxaan aaminsanahay dadka kale walaalay ila taagan inaan oga haboonahay oona oga xaq badnahay oonan aaminsanahay inaan iga dhugnuglaan doono insha Allah maxaa intaan idin dhex jooge oon wax maray waxa anaad ismaray wax weyn aan qabtay shaqadii baan qabtay alxamdulillah laakiin rag ila mida waxaa jiray ama dumar oo ayna shaqada lahaayeen oo markaan idin wada kacay cali jirteen insha Allah dadka taagan xaq bay u leeyihiin anina xaq baan u leeyahay laakiin galabta waxaan idin la joogaa waana nagu soo noqon doonaa geedkana waan oga dad badan baa nagu soo mare ama nagu soo mari doona nin walbana afkiisu ku teeteesani uu ku weydiisani aniga faahfaahin badan ma sii galaay wiilkiinaad ahay dhalinyaradan odayaashan wax badan baan soo marnay alxamdulillah maanta waan qowbanahay maalin abaar oo dhib jiro oo webi cali godana biyo laga keenay dhibkaa uuna soo maray kuraagiina aan u baahanahay maan si wiilka sheegay barbax iga bixiya insha Allah barbax haddii ana barwaaqo aan galo waxaan aad iyo aad file barwaaqada in iga soo gaarsiin doono hal shay oo xaqiiqad jirta ayada quraanka waxay la taqnadu min rahmatillah naxariista ilaahay ka quusanina dadka waxaad moodeen inay quusteen maxay u quusteen wax bay dooranayeen oo ku xumaanay duqayda adeero ani nasiib darro isku arkay kii soo kala wuxuu ugu xumaanay ijaarka loo taraacayso kala ul ficno waxaba laga u sheeynaa ficil safarta anigu fiiriya qoysa ii fiiranina wiilkiina nahay hadaa waxaan u sheegay huluuqo iyo sangaaylo inta badan ani markii aan meel tago waxaan aad u jeclahay meesha degan ama reer deegaankaas inaan afkooda ku hadlo oo ku weydiisto iyadoo munaasib tahay oo imaan doonto inaan qoys iyo jifa loo kala galo laakiin sida quraxsan aniga maadaama 9 sano mas'uul idinka ahay maanta inaan handaaro ahaan wax ku weydiisay ugu quraxsan maxaa markaa meeshan booydan imaanay ama raashin keenjin account u shaqeynay wali qoysabel inta qaadi qoysabel amaan biis kale ma dhihin imana soo marin waqtigii aan meeshan bilaabe waqtiga doorashada niiga ma jirin markaan daadamo biyo geynayne golol bay la geynayne sabeenal geynayne wax walba sameynayne abaartii ugu dambeysay waxaan qabsay ogan sabeenal gaari meel u garan wayne oo geeda gur la sameeyay meel walbana biyo waan geynayne insha Allah intaana sameynayne
lacagta CDF-ta MB-ga wax badan uu qaban karaa jirta ninka la rabo inuu horwado u noqdo dadka ka warhayo uu biyaha u keeno wax walba u sameeyo waa qofka mudana la soo doortay shaqooyin waxaa jirta asaga uu lahayn laakiin handaaro ninkaa dooratay ma aabba wey soo maha waxyaalaha u daran oo handaaro liga cajir waxaa ka mid ah handaaro waxay aad uga sheegan jireen waddadan waxay dhaheen wax noo istaago ma leh ani ama barobox aan wato ama lankruus aan wato inta badan haddii rataa dukaama hadday xiran yihiin meesha wuxuu arko u salaami jire haddana waxaa idiin ballanqaada insha allahu haddaad kursigaas igu caawisiin kuraagayna oo baarlamaanka aan tago xaqiina inaan si walaalnimo ah hufan cadaalad inigu shaqeeyo idin dhanuglaado idin dhex joogo wax badanna waan ka faa'iidaynaa xaaladda jirto waan ognahay waqtiga ma sii dheeraynaya codkana waa idin siin doonaa insha allahu waana soo laaban doonaa insha allahu haddana markii koowaad wax nii weydiiso maa garaskan 6 bilood ka hore taariikh 31 bishii December 2021 meeshana maalin saas oo kale imaade intee maqlina kullee warkii dhigto way ka haysay kursiga baarlamaanka jaara uu taaganahay adeerayaalow waa nuuga dadka walaalaha taagan kursigaas inaad ugu caawisiin talada maanta gacantiina ku jirta talada gacanta ku jirta waxaa weeye 5 sano baa fursad ku soo mari muddo konton beri ka yar hadda konton beri ka yar sanduuqii baarlamaanka waa la keeni qof dad islaamna waa nahay qofkii niyadaada aad leedahay qofkana ku habboon mas-uuliyadda gudan karaa haddaad doorato uu wax kuu qaban waayo asaga ilaahay la xisaabtami laakiin qof aad marka horeba islahayd ku kalsooneen inaad intaad u kala migangarayso qofka hadduu soo galo adigii doorate iyo intaad mas-uulkeeda keentaba ummadda hadduu dulmo uu xaqru qaban waayo adiga aqra ilaahay kula xisaabtami qabri kaliya waa maageli mas-uuliyaddana waa lis weydine walaalayaalow markii aad kala migangaranaysiin ama qof codaynaysiin nin walba dad markay ku hayso qoysna kuma anfacay qofka mas-uulka waajibaa kaa saaran qofkaad leedaho markaas uu ku anfici adoo aqligaada iyo diintaada waxba ku xakamaynaayeen dooro insha allahu aniga insha allahu ilaahina ducays waan kaashanaynaa baahidii meesha lama tilmaamay handaaro iskuulkeeda waan garanay waddadii sangaali ku aadayna waa gurte waay go'da meel la mara waka laal baa la mara adba la mara isbitaalka waxaan soo gaaray nin mukaamba oo naaska eh aan imaan jiro daawo qabo ishu u yaallo waan garanaynaa oo dhakhtarka imaanan jirin ninkaa markaa meeshan ku mar wuxuu ka mahad sheegan jire ree handaaro oo dad fiican cana ii keenaan iray ii keenaan nabadgelyaa jirta alxamdulillah soo maha nabadgelyada nafteeda dadka la rabo inuu ka shaqeeyo oo meesha station laga furo network la keeno ay xarun center noqoto waxaa laga rabaa ninka mas-uulka hadda ani maalin safarta hore meesha waxaa idiin sheegay handaaro waa magaalo muhiime laba magaalo weyn ijaara iyo sangaalo u dhexaysa way ku adag tahay qofka handaaro joogo maanta hore subax kasta inuu gaaro u raaco sangaalo ama u raaco meeshaas ijaara waxaa la rabaa isbitaalkan dispensariga inuu qalabaysin lacagtiisa waxaa haysa county government ninka MB-ga hadduu dhaho qofka MB-ga laga doonayo hadduu dhaho lacagteeda waxaa laga sugayaa county oo isbitaalka u babaasan yahay ma lacag 1 milyan oo CDF laga bixiyo isbitaalka lagu lacag tirma la wayn ma dhakhtar Soomaali baa laba oo meeshan gabdha ku muliyo oo daawada keeno waxa waa mas'uuliyad dari waana waxyaalahan ogahay waxyaalaha illa xawna waxa kamid ah saakay waxaan ka sheegay sangaayluhu luuqana waan ka sheegay isbitaalada waxa jira la dhisay garebe laga dhisay ilka beer laga dhisay marra laga dhisay waxba kama furno waxba kama shaqeynayeen waxay u baahan yihiin nin dhakhtar oo 30 kun qaato la qoro iyo daawadii la keeno wiil Soomaali oo samawada ka shaqeeyo lama waayin waana waxyaalaha baahida yar oo wax laga qaban karo wadadan arkaysiin oo laga gooyo geedulu magaalada la jeebgan lama maro way dumaysaa maxay dumaysaa wadada ka leexatay lacaga imaata loogu talagalay oo lagu xaqiro kalbadihan gabay lagu hagaajin karo waxba lagu hagaajin karo laakiin ninkii mas'uulka duwa soo marin ama dadkii warkaanya say ku imaanaysaa talada maan gacantiina ku jirtaa inagoo qoys u fiirinaynin deegaan weyn baa tihiin waa dulmi badan baa nigulahay waan ogahay meesha garbiga siiya insha allahu meesha garbiga siiya kuraagiina barbax iga bixiya haddaan soo galo insha allahu garaskan waan imaane ilaahayna shaahid uu ka yahay wixii aan qaban karo waan qabane markaan idin imaan jira abaarayaan ila joogi jire rag badan oo ila mid ah jirto marka iga mishaar badnaay iga dhaqaal badnaay ama kuraag ku soo galeen ama shaqaalo kale ahaayeen horaan waxaan eedan jirnay nimankan oo Soomaalidan ahayn oo dawladda Kenya soo dirsatay aniga markaan DC ahay nin Kenyaanka kale ila shaqeynaa Soomaaliyan ahayn oo xeel qaybta security u xil saarnay ninkaas oo kale waa dhigi karta waa nin Kenya hoose ka imaadee wax badan kuma asid laakiin ragga mas'uuliinta ah ma gabdhaha mas'uuliinta ah Soomaalida ahayn oo qoyska ahaayeen oo wax ka sheeganayseen markii aan idin imaanay oo dhibaatooyin jirta inta ayna mishaar may qaadanayeen dhibkii haddana ayuu nagu dhicin insha allahu arrintaasaan ka taxadarno waan idin ku soo noqon doonaa buulooyinkaan soo wada galno odayaashan in badan oo saaxiibo ah oo isla jireen waa jirtay galabaa la joog ma sii dheereynay waqti kale waa imaan doona insha allahu kaambigana kunta bere ka soo hartay kuraagiinaas ugu caawiya insha allahu aad iyo aad baad mahadsantihiin meeshan meelaha kale waan ka xigsadaa
inaan ku cilbaxona waan rabaa insha allahu reer handaaro horena ballan baan leeyahay waan idin imaan codsiga waan idin dhiibtay maantana inta waan israacinahay qasidka u socon waa in duqa adeerka intuu sheegay waana soo gaabin waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr